bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamij wareedkeena maanta qodobada xiisaha badan ee aad maanta barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo naftooda kala soo cararay magaalada Beledweyne dibadbax karana al-shabaab oo maanta ka dhacay gaalkacyo dagaalka Soomaalida iyo Cafarta oo aad u sii xoogaystay galmudug oo xaqon adaga ku riday nin afduub iyo kufsi u geystay gabar 6 sano jir ah qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad maanta barnaamijkeena kaga bogan doontaan daawadayaal iminkaas ku soo dhawaada barnaamijkeeni oo faahfaahsan waana maalinimo Arbacaha taariikhdu ay ku beegan tahay 25 Agoosto sanada 2021 warar kala duwan ayaa ka soo baxaya in magaalada Muqdisho ay soo gaareen xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi kadib markii ay ku sii sugnaan waayeen magaalada Beledweyne oo gashay xaalad kacdoon ah xildhibaanadan ku soo laabtay Muqdisho ayaa qayb ka ah siyaasiyiin reer Hiiraan ah oo Beledweyne u tagay inay halkaas geeyaan madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe balse magaalada ay gashay xaalad cakiran labadan xildhibaan ayaa sheegay in Beledweyne ay ku soo arkeen bulshada oo isugu jira haween iyo dumar iyo caruur iyo ciroole oo dhammaantood diidan maamulka uu hogaamiyo Cali Guudlaabe sidaas darteedna ay Muqdisho ugu soo laabteen inay ka fikiraan xaalad kale oo ay ku hagaagi karto Hirshabelle xaaladda Beledweyne ayaa hadda degan kadib fowdadii habeenkii Axadda ee ka dhacay xarumaha ugu muhiimsan ee maamulkaas kuwa oo ay qabsadeen ciidamada ka gadoosan tagista Cali Guudlaabe ee Beledweyne waxaa jira walaac xoog leh oo ay qabaan dadka reer Hiiraan iyo siyaasiyiin kaleba oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa Beledweyne oo muddo dheer wajahaysa xaalad kacdoon oo ka dhan ah Cali Guudlaabe xaaladda ayaa waxaa ugu sii daraya xildhibaano gobolka ka soo jeeda oo saameyn xoogan ku leh una ka mid yahay wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre oo sii dhiirigelinaya in laga soo horjeesto Cali Guudlaabe dhinaca kale magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigeen shacabka maamulka magaaladaasi kuwaas oo ay ugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi ku yaala dibadbax ayaa waxaa looga soo horjeeday kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale ka soo qayb galay maamulka degmada iyo wasiiro iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee magaalada Gaalkacyo sidoo kale dibadbaxan ayaa waxaa lagu taageerayay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ay ka wadaan koonfurta gobolka Mudug qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin ciidamada huwanta ee dagaalka ka wada deegaanada maamulkaasi mas'uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa dhankooda xusay in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalka adag ee lagula jiro al-shabaab kana socda gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya dibadbaxan oo soo qaban qaabiyay maamulka degmada Gaalkacyo ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa goobaha iyo ganacsiga ee magaaladaasi oo maanta gabi ahaanba xiran si kastaba haatee Galmudug ayaa howlgal culus ka wada deegaanadeeda waxaana dagaalkii ugu dambeeyay uu shalay ka dhacay koonfurta gobolkaasi Mudug ee bartamaha Soomaaliya dhinaca kale maxkamadda gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa maanta soo gabagabaysay dacwad ka dhan ah eedeysane Maxamed Cabdi Dhoore oo loo haysto inuu afduub iyo kufsi u geystay gabar yar oo 6 sano jir ah maxkamadda ayaa shaaca ka qaaday in Dhoore uu falkan geystay 19 bishan Agoosto isla markaana uu ka dhacay deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaana la sheegay in gabadha uu falkaasi ka soo gaaray dhaawac xoog leh ugu horeyn xeer ilaalinta maxkamadda ayaa goobta ku soo bandhigtay qiraal laga qoray eedeysanaha iyo cadeymo kale oo muujinaya sida uu falku u dhacay oo ay ka mid yihiin warqadda dhakhtarka dharkii gabadhu ay xirneed iyo sawirada goobta laga soo qaaday iyadoo xeer ilaalinta ay dalbatay in loo cuskado ciqaabta la marsiinayo eedeysanahaasi sidoo kale qareenada difaacayay eedeysanaha oo dhankooda ka hor hadlay maxkamadda ayaa ka dalbaday in eedeysanaha loo qafiifiyo xukunka iyadoo la eegayo qiraalkiisa intaas kadib garsoorka maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka kama dambaysta ee kiiska Maxamed Cabdi Dhoore waxaana lagu riday xukun dhan 5 sano oo xabsi ah iyadoo sidoo kale uu bixinayo 2 halaad oo ay maxkamaddu sheegtay inay noqonayaan dhiiga gabadhaasi dhinaca kale ehelada gabadha yar ee dhibanaha ah ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay maxkamaddu ka gaartay kiiskan oo marxalado iyo doodo badan soo maray
si kastaba haatee gobolada galgaduud iyo mudug ee galmudug ayaa waxaa inta badan ka dhaca falal la xiriira kufsiga, waxaana kiiskan uu ka mid noqonaya kuwa ay ku guuleysteen hay-adaha amniga iyo maxkamadaha ka jira deegaanada dowlad goboleedka galmudug. ugu dambeyntiina warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeyay Soomaalida iyo Canfarta oo saaka mar kale dib uga qarxay deegaan ka tirsan gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. dagaalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka Canfarta ay weerar ku qaadeen shacab Soomaaliya oo ku sugnaa deegaanka Biyocade oo u dhow magaalada Cadayti, waxaana halkaasi ka qarxay dagaal u dhexeeyay labada dhinac. sidoo kale dagaalka ayaa xoogiisa waxa uu ku sii fiday tuulooyinka Shakle iyo Birta Dheer tuulada Qalacli oo ku taala magaalada Candhuufta. ujeedka weerarka ay qaadeen maleeshiyaadka Canfarta ayaa lagu sheegay inay ku doonayeen inay ku qabsadaan dhammaan deegaanadaasi kadib markii ay horey gacanta ugu dhigeen magaalooyinka Garbuciise iyo Cadayti oo ay ku sugnaayeen Soomaalida. inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka maanta ku dhintay ugu yaraan ilaa 10 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo ka kala tirsan labada dhinac. weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay maamulada labada dhinac oo ku aadan dagaalkaasi dib ugu qarxay ee khasaaraha badan geystay. xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka uu sii xoogeysto, sidoo kalena uu ka sii daro khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca. waa tahay daawadayaasha aynu jecel nahay oo barnaamijkeenii maanta intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa. tan iyo inta aan barnaamijka ka lamid ah aynu ku kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.